monitoring group kooxda la yiraahdo oo Soomaaliya inta badan ka soo saarta warbixinada noocay doontaba ahaatee toddobaadkan waxay soo saareen warbixin ka kooban 340 iyo xoogaa page hadaan qaldanayn dabcan warbixintaasi meelo badan oo Soomaaliya waa uus baarteen baa la dhihi karaa uus baarasho meel ay ka tageen lama arko tuulo magaalo shakhsi cid walba ay farta ku taageen arrintaasi ayada ah sidee u aragtaa arrintaasi maxaa keenay in sanad walba ay soo saarto monitoring group report noocaas oo kala oo xukuumadaha ama dawladaha Soomaaliya ka jira aysan challenge ka sameyn ama aysan ka hadlin arrinta ayada runtii duraan waa soo sheegtay waxa soo baxday warbixintii monitoring group-ka oo arrimaha Soomaaliya ee Eritrea arrintan iyadana waa arrin soo noqoto sanad walbaba ay warbixino noocan ka soo saaraan mar walbana dawladii markaas jirtana ay dood ka samayso ama habka wax lagu soo ururiyo macluumaadka iyo ujeedooyinka qaarkood markaas fiiriso warbixintan iyada hadda waxaad moodaa in dawladda sidii hore aad loogu dhaliili jiray arrimo badan inaan lagu dhaliilin dhinaca waxaad ka arkaysaa in lagu ammaanay inay wada shaqeyn la samaysay guddigii hawsha in aad loo ammaanay dadaalada socda oo bangiga dhexe ha noqoto ama wasaaradda maaliyadda dhinaca kale iyadana waxaad arkaysaa in habka oo cunaqabateynta hubka oo iyadana dhaliilo laga sheegi jiray sanadkan in la yidhi in dawladdii ay diyaarisay qalabka soo gala iyo siday u ururinayso wixii oo dhan ay hagaajisay dhinac waa jiraa laba arrin oo dhinacna safaaradii Nairobi dhinacna wasiirka hore dekedaha muxuu ahaa dhaliilo xoogan meelahaas looga soo jeediyey laakiin muxuu ahaa ani waxaan qabaa in markan ugu fiicnaa marka loo fiiriyo mararkii hore tanoo keentay wada shaqeynta dawladda iyo guddiga midda kale oo iyadan isweydiinta lahaa waxay tahay sababta Soomaaliya iyo Eritrea kaliya ay qaramada midoobay arrimahan sanad walba uga soo saaraan siyaasad baa ka dambaysa waxyaalaha qaarkoodna sax ma aha aniga aaminsanahay u baahan dawladdu inay go-aan ka qaadato oo ah qaramada midoobay iyo wadamada security council-ka fadhiya ay heshiis xiriir fiican la samaysto si warbixinadan oo runtii dhaawacaya ummadda Soomaaliyeedna loo joojiyo dhinacna markaa fiiriso safaaradda oo kale Nairobi iyo wixii ka dhacay haddii arrin safaarad Mareykan oo Nairobi ku taalo uma malaynayo in guddi noocan oo kale ay ogaan karaan waxyaalaha ka socda waxna waa wax maaragtay sovereignty-ga iyo independence-ga dalka oo u baahan inay confidential noqoto oo ay muxuu ahaa warar noocaas oo kale ah si publica dadka eedeen loogu jeedinin dhinaca kalena dawladdu waxaa moodaa inaan fursad la siinino inay ka jawaabto inta aan warbixinta lasoo saarin arrimahaas oo dhan waa arrimo runtii dadka Soomaaliya eliiska aad isu weydiinayaan laakiin dhinaca kale iyadana waxaa moodaa in warbixinadan iyo warbixinada sanooyin walba soo baxayay ay runtii keentay in dawladihii ama wasiiradii ama hoggaanka mar walba jiro isna uu ka fikiro in qaladaadka noocyada noocan oo kale musuqmaasuq oo kale laga fogaado arrimaha waxaan isleenahay iyagana ujeedada ay ka leeyihiin in Soomaalida la rabo in lagu baro sida musuqmaasuq loo joojin karo inay tahay in ama siyaasiyiintooda ama shakhsiyaadkii la fadeexeeyo ama rasmi ha noqoto ama been ha noqoto midda kale ma aha maxkamadda go-aan soo saartay oo la oran karo waxeedu waa dhab marka arrimahaas oo dhan aniga saasaan u fasiri lahaa injineer hal daqiiqan raba inaad su-aashaan igu soo koobto hadday suuragal tahay Brussels waxaa ka dhacay labadii beri oo lasoo dhaafay shirkaasi waxaa la sheegay in qaxootiga Soomaaliyeed loogu soo ururinayay lacag Brussels sidaan ognahay laba shir oo hore ka dhacay oo qaaraan loogu ururinayo Soomaaliyana aan waxba soo gaarin Soomaalidu kama daashamiyaa qaaraan aruurinta aan waxba ka soo gaarin ka dhaca wadamada reer galbeedka arrinta maxaa ka leedahay ridwan waa runta laba arrin baa keenaysa adoo buko haddii qof daktar ku yimaado talabsi ma diidaysid Soomaaliduna waa bacdama dawladnimadeena curdun tahay weli ayna isku tashan mar walbana la yidhahdo waxbaa laydin aruurinaya horta lagama daalayo waxbaa kasoo bixi karaa laisleeyahay tan Brussels aad bay ugu duwan tahay kuwii hore waa arrin qaxootiga Soomaalida sidii loo soo celin lahaa wadankoodii nabadda uga qayb qaadan lahaayeen waa arrin aad uga duwan markan waa humanitarian waxaan isleeyahay muxuu ahaa ballanqaadyada la dhabay waa laga dhabayn doonaa midda kale iyadana xoogga le waxay tahay oo dawladda Soomaaliyeed runtii mudnaan maha faraha badan waxay keentaa marmarka qaarkood inaysan sameynin follow up loo baahnaa inay dabagal ku samayso ballanqaad markii la sameeyo dawlad walba waxa ay tirahdo waa siinaa dalkii dawladda laga rabaa federaalka inay dabagal xoog la ku samayso guddi u saarato muxuu ahaa asaasna lagu dhabeeyo inay wixii yimaadaan marka waa dhinacna dawladda looga baahan yahay dabagal fara badan dhinaca kalena kan Brussels waxaan isleeyahay waa arrin humanitarian qaxooti inay arrinteedii maray dhalaysaan aaminsanahay injineer Cabdiraxmaan Cumar Ismaan injineer Yariis